دواء وسوري وقعفر كسودوا هذا إلى شوكت مقالك إلا جري هذا دقوا عصبت هنا مقالك إلا جري أنا سبسكرايب جري سودوا هذا قف كيس أي وتي بريان ويلش حلية أي عرك جيين قبلي سومالين قبلي يتعلقون أي سوقاتين حلقة سامراء حلية عدي على غالس كربعة هذا بس هاكي سؤال آديات مهمة وآديات مهمة وقبل كستو سومالية مهم وحتى أنا جي مهمة ياللي ويدي جوابتك بحين واتنافق كذا مهم ساكي مقال عن صدق بريان muuqaaladeeda ayaa meediyaha aad u haysta marka muuqaalaha ka soo qaatay ee gabadha abaaya hadalkan ku soo qortay xasid baa naagaha Soomaaliyeed oo dhan leeyihiin iyo nacab horumarkoodana waa laga xun yahay dhamaantood mid ayaa jirta dadka xataa adigoo si daacad wax ugu sheegay qofka marka talana walaal waxaas ka xun qofka xataa haduu soo hadlin qof kale inta soo hadlo wuxuu leeyahay waxa laga yaabaa inaad horumarkeeda ka xun tahay haddaba erigan nacabka iyo xasidka ayaan bal maanta rabaa inaan wax yar كبيامي وايو وح نفتن وكان أنا وفكر رديدا ير إيه مسكحنا يرتاح يقول شرتاه وحن آمن زنها يا شرا وايو فكر نقكرتاه وادنا يقول فكر نقوي كرتاه لكن الباب كي وبلقيا إن تشم سودا واو هذه فكرة دي كوقن عوي سنة أديقون كاربت كالباب كي يلا يجوا وسقين ترتيب واسك بحكي كرتاه قروح بدني سودا واو مركا هذا بقى رجع نعبك يحسد كرتو أسكو هل متساو ملاينا يو لكن أنا ومدنا من سنة حاسد يا نعب أنا نفتي دهن مليه صابت حتى هاي نفتي ده أيضا أما وح وناكسن يهرسي دي كرته أما أيضا يوجرت أيا وحن يهرسي دي كرته أنا كحمد أهانتي ده نفتي ده أيا أما مال وناكسن يجي كرته أما ملحن يجي كرته نفتي ده أيا إبادي كرته إن ويون على أما نفتي ده أيا إبادي كرته إن فرحه أنهر مرجعه هذا بقى أنت نبضن وح أنا لهين تبكى يداوع يمرقد النوجو عني وحواية ملهن كنترول ilmaha iskuulada bilaabaho galaaska koobaad markay bilaabaan ilaa galaaska labaad ereyga lagu celceliyo loo dhiga waxa kamida self control waa inaad haysataa naftaada control waa inaad naftaada control kartaa marka dhamaanteen waxa naga maqan waa controlka nafteena walaalo nacabka iyo xasidka dadka kugu waa labo dad waadadaan ku garanaynin oo shaashadaas inta ka arkay iska ka nacay taasina waa cudur la iska daaweeyo waana dadkaasi waa dadna waa dad adugu aad u tagtay ee aad noloshaada farta ka saartay ee aad daba oraday ee aad u sheekaysay ee aad la aweyday ka bacdina kugu xumaad marka labadaba aan kala qaadno dadka horta aan ku garanaynin shada ka nacayo waa dad ayagu nolosha ku fashilmay waa qof asagu noloshiisa la taag daran ee la dhibaataysan ee adiga ka arka horumar aad gaartay ama wixii asagu uu jeclay adiga ka arka wixii asagu sameysala ee halkaas kugu naca qofkaasina noloshiisa waxay ku xirantahay kaliya inuu faraha wax ka qoro xataa waxa laga yaabaa inuu yahay qof qaarka dambe meedka oo qaarka hore ka nool oo wax uun qori kara marka qof ka adag inuu wax uun soo qoraaho nacab iyo xasid anigu ma arkay waxaan u arkaa qof sii dhimar raba ee raba ciduu hore u sii wato kuwa kuwan ku garanaynin kuwa ku garanaya qofku yaqaana ee adigu aad u sheekayday ee adigu aad u calaacashi u oyday nacam maaha marka hore kuwa inaad ku tala gashaa qofka aad wax u sheegatay inuu wax ku xaftiyaho waa asaga ay kartidiisa inuu wax ka sheegan waa asaga ay kartidiisa marka waa inaad ogaataa in adiga dhibaato kaaga imaan karto si bilaadima dad control nafeed aad leedahay oo aad taa qof naftiisa control kara cidadu calaacalaysa cidadu wax u sheeganaysa cidadu ooynaysa cidda daaqadahooda qabsanaysa inta waxay noqon karaan Allah subhanahu wa ta'ala asageedu ooy karta asaga qurbada biciya asaga dantaadu u sheegi karta asaga ayaa albaab kasta fura marka walaalo nacab iyo xasad ana nafteena malihin tananiyajbisa waa nafteena taxumaantana bartahay waa nafteena tadaaqadaha saartahay waa nafteena tan anagoo shalay guurkeeni burbure aan ka soo kabsan aan guur kala madax iskugu tuurnaa ee bari hadana aan soo barano waa nafteena tan aan ubadkeena aan u haysa weyno oo aan danteenu aqoon weyno ee aan Allahina abuurto uga baqi weynaahu waa nafteena tan nabada inaan meel wanaagsan marnaa inta waa nafteena marka nacabkan iyo xasadkan inta waqti aad gali lahaydeen ama wanaagsan tahay inaan waqti gelinaahu nafteena sidaan uga adkaa lahayn nafteena sidaan macallin wanaagsan ugu noqoneen sidaan u baran lahayn self control sidaan u baran lahayn bashuun lahayd stark bashuun lahayd qof nafsadiisa adag tahay qof leh awood sida u noqon lahayn qof leh awood haduu guul dareystana guul darradiisa ku xalista haduu guuleystana farxadiisa ku xakameeya guusha laftirkeed inaad waawaray waa guuleystayay horumaraan gaarayay hallay arkoy inaad tiraayada laftirkeedu waxba kaama soo galaya guul iyo goor darraba qof wixii saxalista inaad noqotid ama wanaagsantaa
ama ku fiicanta inaad naftaada ka adkaatid anigu waxaan aaminsanahay ama ila aaminsanaa cadow aan naftayda ahayn malihi ta iga ooydida waa ayada ta xumaantay barta waa ayada tan nacabkan la sheega iigeyda waa ayada tan haddaan horumar gaaro ee aan dhan adduunyo dhan aakhiro guuleystana i horumarisahay waa ayada marka anigu tala waxaan igu sii lahaa dumarow naftiina mooyaane cadow kale ma lihidiin marka ayada waxaad gelisaan ugu yaraan waqtigaaga 60% waxaad gelisaa sida aad naftaada aad uga adkaa lahayd sida aad u yeela lahayd awood qofeed oo wixii dhibahoo hela ku xalista sida aad u noqon lahayd qof guuleysta ama guul dareysta labadu way is ag yaalaan laakiin inaanta ummadda adinku u baroorataan u ooydaan haddana aad tiraahdo noloshayda laga xun yahay walaal cid noloshaada ka xun ma jirtee naftaan yare kugu jirta ayaa noloshaada ka xuno ayadu meel xun ku horseeda kuwa ayagoonan ku aqoonin ama ku yaqaan beentii propagandada ka sheega ee ku daba guray ku daba taagan kuwaasi walaal waxay ku egyihiin waxoodu qoraal un bay ku egyihiin qoraal ayay ku egyihiin ayaga laftirkoodana haddaad leedahay awood qofeed maalinna uma jabaysid laakiin wax kasta oo kugu dhaca waxa aad ugu jabaysaa waa naftaada controlkeeda gacanta ku heen iyo awoodi qofeed oo adiga ka maqan marka labadaas aan soo dhisno awoodi qofeedna aan soo dhisno sida aan nafteena u controli laheena aan soo dhisno qofkaanu cabaneena eenu ooyeyna eenu cabaadeyna Allah subhanahu wa ta'ala een abuurtay dunidana keenana aan noqono guul maalinta ayay ku bilaabatay oo aad guuleysatay runta ma kala rabo marka anigu dadka xasadka iyo nacabka waqti kulluminaya kamid miihi walaalo nafta yar baa nafti ii keentay ayada ayaana hagid iyo hogaamiye wanaagsan inaan noqdo iga baahan haddaba inta way anigu fikradeyda anigu aaminsanahay hadii igu fikirtahana wixii igu fikirana waa kaasa cidii anigu fikiraheena fikradooda waa inaan ku ixtiraamaa ayada laftirkooda hadii dadka nacabka u taqaaniina waxaad ogaataan waa dad hadda tahay qof wax qaadanaya wax badan ka sixi kara sababtu waxay tahay waa dad ku mashquulsan inay qaladaadkaaga arkaan waa dad inta adigu naftaada waqti aad gelisay ka badan laga yaabo inay waqti naftaada geliyeen marka ayaga laftirkooda waxaad ogaataa in wax badan laga faa'iido oo wax badan oo adiga aadan arkeen oo ayagu arkaan aad komitiyada ka faa'iidid inta aad u aragtid inay ka qaldihiin iska sax inta aad u aragtid inay ku saxsan yihiin dadkaani ay ayagu qalad u arkaan fikradahooda ku ixtiraam waayo dadka gabal ay indhahoodu aysan wanaag arkin hala dagaalameen dadka aadan ogeyn xataa inay nool yihiin iyo inay dhinteen ee ku mashquul sida naftaa yare kugu lamaanay marnaba aan ka hareynin ilaa dhibato mooyaane aad ugu noqon lahayd hoggaan wanaagsan haddaba soo dhawaada